Arsenal oo warxun ka heshay xaaladda laba xidig oo muhiim ah ka hor kulanka Sporting. Arsenal ayaa wajahaysa dhibaato dhaawacyo ah ka hor kulanka adag ay la ciyaarayaan Sporting Lisbon ee UEFA Champions League. Kooxda Mikel Arteta ayaa xaqiijisay in Bukayo Saka iyo Jurriën Timber aysan safarka Portugal ku helin, isla markaana aysan diyaar u ahayn kulanka. Arteta ayaa yiri, "Ma aysan safrin sababtoo ah weli diyaar ma ahan. Waxaan rajeynayaa inay diyaar noqdaan usbuuca dhamaadkiisa haddii wax walba ay hagaagaan." Si kastaba, waxaa jira war wanaagsan iyadoo 3 ciyaaryahan oo muhiim ah ay dib ugu soo laabteen kooxda. Declan Rice, Gabriel Magalhaes iyo Leonardo Trossard ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda. Arsenal ayaa kulankan u aragtay mid aad muhiim u ah, gaar ahaan iyadoo ay hore ugu hareen FA Cup-ka, isla markaana ay doonayaan inay ku sii dagaalamaan tartanka UEFA Champions League ee xil ciyaareedkan. Haddaba daawade, miyay kula muuqataa inay Arsenal dhaafi karto kooxda Sporting Lisbon iyadoo ay ka maqan yihiin 2 ciyaaryahan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Bukayo Saka iyo Jurriën Timber oo ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee kooxda Arsenal? Barqa wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.